kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa Fagaare Production u diyaar garooba daawashada wararkii ugu dambeeyay ee siyaasadda Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah qorshe ay wadatay Villa Soomaaliya kana dhan ahaa ra'iisul wasaare Roble oo fashilmay iyo shirqo loo maleegayo xukuumadda Roble ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo hal sabab uga aamusan kiiska Ikraan oo ay ka wada hadleen dhammaan midowga musharaxiinta haddaba Khayre miyuu wax ka og yahay afduubka iyo dilka Ikraan Tahliil qodobada kale ee warkeena aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah ra'iisul wasaare Roble oo digniin culus ka soo saaray kiiska Ikraan Tahliil isagoo amar dul dhigay saraakiisha ciidamada dawladda Muuse Suudi iyo xubno kale oo markale loo doortay kamid noqoshada sanatarada aqalka sare ee maamulka Hirshabeelle ku matali doona baarlamaanka Soomaaliya qodobadaasi oo dhan ayaan ku faahfaahin doonaa wararkeena si aad ula socoto warar sugan oo xaqiiqo ah subscribe saar YouTube-keena si uu kuugu soo dhaco wararkaan halkan soo dhigno haddaad aragtidaada qaybta hoose ee commentiga noogu reebto waan kaaga mahadcelinayaa aan ku bilaabo warkeena ilwareedyo ka tirsan hay'adda sirdoonka Soomaaliya ayaa inoo sheegay inuu dhicisoobay qorshe ay Villa Soomaaliya ka lahayd magacaabistii Yaasiin Farey ee ahayd inuu noqdo agaasimaha ku-meel gaarka ah ee hay'adda NISA qorshaha Villa Soomaaliya iyo damaceedii magacaabista Yaasiin Farey ayaa ahaa sida la sheegay inuu baabi'iyo dukumentiskii muhiimka ahaa oo yiilay xarunta NISA ururinta warbixinada fududeyn kara helista xogta kiiska Ikraan Tahliil Faarax iyo maareynta hub iyo hanti kale oo taala gudaha xarunta hay'adda NISA Villa Soomaaliya ayaa dadaal weyn ku bixinaysa in la daboolo xaqiiqda kiiska Ikraan Tahliil waxayna sidoo kale diidan tahay in maxkamadda ciidamada ay baarto kiiskan saraakiil kuwa ammaanka ah ayaa sheegay in aysan suuroobin damacii Villa Soomaaliya balse ilaa hadda ay wado dadaalo badan oo noocaas ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in Yaasiin Farey u magacaabay agaasimaha ku-meel gaarka ah ee NISA waxaana markaasi ka sokow saxaanshihiisa taagnaa dood kale oo tilmaamaysa sababta uu madaxweyne Farmaajo u baalmaray nidaamka awood qaybsiga beelaha sida inoo xaqiijiyeen ilwareed lagu kalsoon yahay ciidamo gaar ah oo ka tirsan ciidanka waran ee hay'adda nabad sugidda ayaa lagu wareejiyay sugidda amniga qayb muhiim ah oo ka tirsan xarunta NISA xogta aan helay ayaa tilmaamaysa in xafiiskii agaasimaha NISA xafiiskii maaliyadda xafiiskii diiwaanka iyo xogaha qaybta hubka iyo VIP-da ee hay'adda NISA la dejiyay ciidankaasi kadib amar ka soo baxay ra'iisul wasaare xilgaarsiinta Roble hooyo Qaali Maxamuud Guhaad oo dhashay Ikraan Tahliil Faarax ayaa shaacisay magacyada laba xildhibaan oo ay sheegtay inay caqabad ku yihiin baaritaanka kiiska gabadheeda Ikraan labada xildhibaan oo lagu kala magacaabo Cabdiraxmaan Xirsi Kulmiye oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Dheere iyo xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire ayay si adag uga digtay hooyada Ikraan oo xilligan dadaal dheer ugu jirta sidii ay gabadheeda u heli lahayd cadaalad sidoo kale waxay sheegtay in labada nin ay qaraabo dhow yihiin mid ka mid ah madaxweynaha halka kan kalena ay isxigaan Fahad Yaasiin taliyii hore ee NISA hooyo Qaali ayaa sidoo kale waxay sheegtay inay kalsooni badan ku qabto ra'iisul wasaare Roble isla markaana ay kiiskaasi cadaaladiisa ka sugayaan xil uu dhawaan bilaabay dardargelinta kiiska Ikraan Tahliil Faarax arrintan waxay imaanaysaa xilli Villa Soomaaliya ay isku dayayso in la baabi'iyo kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo loo haysto hay'adda sirdoonka qaranka gaar ahaan madaxdii xilalka laga qaaday ee hay'addaasi maamuli jirtay waa hagaag weli wararkeena ayaa daawanaysaan ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo sidoo kale ka mid ah musharaxiinta mucaaradka ayaa ah siyaasiga kaliya ee aan ilaa hadda ka hadlin kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo dilkeeda lagu tuhmayo hay'adda sirdoonka Soomaaliya su'aalo badan ayaa ka dhashay sababta uu uga aamusan yahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre kiiska Ikraan Tahliil oo hadda ah waxa ugu weyn ee dhexyaala hogaamiyaasha Soomaalida sidoo kalena ah warka ugu weyn ee maalmahan ka jira Soomaaliya dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda ayaa qaba in sababta uu Khayre uga aamusay kiiska Ikraan ay tahay hal qodob oo ah qaladaad kiiskan la mid ah oo ka dhacay xukuumaddiisa Khayre intii uu joogay xafiiska waxaa la dhiibay qalbi dhagax waxaana la weeraray dad shacab ah oo ku sugnaa magaalada Baydhabo kadibna la xasuuqay waxaa sidoo kale jira weerarkii ciidamadii ahlu sunna weerarkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame weerarkii Cabdi Qaybdiid iyo kuwa kale oo ka dhan ahaa shacab iyo siyaasiyiin waxyaabaha sidoo kale dalka ka dhacay ee Khayre ku qasbay inuu ka aamuso waxaa ka mid ah caruurtii Soomaaliyeed ee loo qaaday Eritrea oo ilaa hadda uusan ka hadal maadaama isaga oo xukunka haya la qaaday
xasan cali kheyre oo ah musharax madaxweyne ayaa xukuumaddii uu hogaaminayay waxay dhex dabaalanaysaa eedeymo isugu jira dilal, afduub iyo weeraro uu dhiig ku daatay, sidaasi oo ay tahay waxaa damac uga jiro in uu Soomaaliya ka noqdo madaxweynaha bedelaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waa tahay weli wararkeena ayaa daawanaysaan. Si aad ula socoto warar sugan oo xaqiiqo ah, subscribe saar YouTube-keena si uu kuugu soo dhaco wararka aan halkan soo dhigno. magaalada Jowhar haddaan eegnana, senator Muuse Suudi Yalaxow ayaa ku guuleystay kursiga koowaad ee doorashada xubnaha aqalka sare ka soo galaya maamulka Hirshabelle oo ka socota magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi. senator Muuse Suudi ayaa ka guuleystay Axmed Xasan Cadow Axmed Daaci oo wareega labaad ay isugu soo hareen kadib markii saddexdii musharax ee kale ay ku hareen wareegii koowaad. Muuse Suudi ayaa helay 55 cod halka Axmed Daaci uu helay 43 cod. xubnaha wareegii koowaad ku haray waxaa ka mid ah Cabdullaahi Sheekh Xasan oo la sheegay inuu ahaa musharaxii ay wadatay Villa Soomaaliya, wuxuuna helay 15 cod oo kaliya, taasi oo muujisay sida reer Hirshabelle ay isaga diideen Villa Soomaaliya. kursigan ayaa horay loo sii saadaalinayay inuu yahay kan ugu loolanka adag 8 kursi ee lagu soo dooranayo Jowhar, waxaana dadaal xoogan ay Villa Soomaaliya ku bixisay sidii looga adkaan lahaa Muuse Suudi. Muuse Suudi Yalaxow ayaa kursigan ku soo fadhiyay 4 sano ee la soo dhaafay, sidoo kale 4 sano ee soo socota ayuu golaha aqalka sare ku matali doonaa maamulkaasi. dhinaca kale, senator Nuur Maxamed Geedi Canjeex ayaa noqday senatarka labaad ee laga soo doortay Hirshabelle, wuxuuna ku soo baxay 78 cod halka senator Fartuun Cabduqaadir ay noqotay senataradii saddexaad ee lagu doortay Jowhar. sidoo kale waa gabadhii u horeysay oo Hirshabelle ka soo gasha aqalka sare ee dalka. sidoo kale maanta ayaa lagu wadaa in Jowhar ay ka dhacdo doorashada 3 kursi oo kale, halka maalinka xiga la dooranayo 2 kursi ee u dambaysa. haddii ay jadwalkaasi u hirgalo, Hirshabelle waxay noqonaysaa dowlad goboleedka saddexaad ee soo dhammaystira doorashada xubnaha uu ku leeyahay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa ka digay isku day kasta oo lagu mirin habaabinayo kiiska Ikraan Taaliil xilli madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khilaaf xoogan uu kala dhaxeeyo Rooble uu guddi u magacaabay baaritaanka kiiska Ikraan. sidoo kale Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa faray taliyaasha ciidamada qalabka sida inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo wax u dhimi karta sumcadda ciidamada qaranka oo dhaawici karta kalsoonida shacabka Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa sheegay inuu aaminsan yahay sida uu dastuurku qabo in hay-adaha garsoorka dalka ay ka madax banaan yihiin laamaha fulinta iyo sharci dejinta ee dowladda. sidoo kale Rooble isagoo ku jawaabaya guddigii uu magacaabay madaxweyne Farmaajo ayuu qoraalkiisa ku yiri gal dacwadeed maxkamad horyaala in loo magacaabo guddi baaris waa arin baalmarsan dastuurka iyo shuruucda dalka. saxna ma aha in hay-ad xubno ka tirsan oo dacwo loo haysto ay qayb ka noqdaan baarayaasha kiiska, taasi oo lid ku ah cadaalad u helida qoyska Ikraan. Rooble ayaa xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ee gacanta ku haya gal dacwadeedka Ikraan mar kale faray inay dedejiyaan si qoyska gabadhaasi ay u helaan cadaalad ka madax bannaan faragelin hay-ad fulineed. waa hagaag daawadayaal, halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen Fagaare Production. ood ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeena. intaa ku kulmeyno warceenkan oo kale ah nabadgelyo. waxaa kaloon halkan uga digayaa 2 nin oo xildhibaano Soomaaliyeed isku sheegay. xildhibaan Cabdiraxmaan Xirsi Kulmiye, Cabdiraxmaan Dheere loo yaqaano, xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire. labadaas kiiska Ikraan lidka ku ah haddayna ka hor wareegin ayagana waxay mudan yihiin la marsiinayaa biidnillaahi baari. labadaas nin oo midna Fahad Yaasiin qaraabo la yahay, midna madaxweynaha uu qaraabo la yahay. ummadda Soomaaliyeed marqaati ka ahaada oo arka ummadaas inay lid nagu tahay oo xaq darro iyo cadaalad darro ummadda Soomaaliyeed ay u hoggaan ugu yihiin. waxaan aniga ku kalsoonahay Ra'iisul Wasaaraha ummadda Soomaaliyeed Maxamed Xuseen Rooble oo kiiskii cadaaladda aan asaga ka sugayno insha Allah ta'ala. ummadda Soomaaliyeed oo awalba i garab taagneed oo walaalahay arka gardarrada Farmaajo ku socdo iyo 2 nin